كسومادو وحنا صعنا مانتا إن ظروف أدقي أما عبارة أدق كلفتين جيس أفريقيا وكم من هاي دان هاي جمهورية سومالان بشهر دماتي برتكيدي كنت أيانا نقول أنا درناي سيان حجار أقول نقولنا حالة ضدك دبعت ضاي تابتي هاسي كلا دراتو اللي إحنا كوبان سومالان كوبان كوبان تاي وحنا تيمك هاو درناي iyadoo kulli roobkii aynu helay qayb ka mid ah oo guga sidii la rabay uu roobkii noo wada gaarin haddana gobol walba inta u darasa soo taabtaan iyo meel walba wixii ka jira haddii xagga cuntada tahay haddii xagga biyaha tahay haddii maad xagga tahay xoolaha ka dhaw maartay wixii ka baxay taasi waxay soo urursay runtii idinkuna hay'adahaan aan ognahay in dhankiina hawl gasheen oo aad soo maartay asas gareyseen ama aad soo maartay xogta ka soo raadiseen dhammaan deegaanada Soomaaliland annagu ku dhadan xilkiina saarnaa ee dowladda waxaan u diray tiimankaasi si aan u ogaano xog dhaba waxa laga yaabaa xogtaasi inay isku dhawaato maadaama labadeena qoloba ay maartay idinku hay'adihii maartay macaawinka bixinaya يا نقول ما تحققها الحين هنا أدي واحد كردوان واحد بدأ يكردوانين حقتها سي مكان صوت كوضو وحنا كوه اللي حقيقة ده إن لو بقول أو كل أو قيس أو دكتورس ومالا هنا يبعثوا تعبطي ولو قياس كردت هالمليون يلا بقول كنا أو أنا نقولي كلا قايبني سيد بقولوا كردبات بديهين haddana 200 kun waxa si emergency ama degdeg wuxuu si in aad waxa maartay hore lagu qabtaa 75 kun oo qoys oo kamid ah daraasada waxaan ku soo ogaanay dhibaatada jirta waxa weeyaan sida socotiin shidaalkii caalamku kor u kacay cuntooyinkii oo aad u qaali garoobay dadku waxay haysteen oo xoolihii oo ka dhamaaday inuu hoos u dhac ku yimid inay awood wax ku iibsadaan oo maanta ay cunto ku helaan inay yaraatay taas ugu wacan tahay xooliyo hoos u maartay dhamaasho iyo maartay daciifnimo badan ku dhacday iyo waxay iibsanayeen oo ah cuntooyinkii oo aad u qaali garoobay taas waxa keentay markaa in dad badan ama caruur fara badan nafaqa darro ay ku dhacdo oo malnutrition aad iyo aad inoo maartay u sareeyo gaar ahaan gobolada maartay bariga iyo wixii buuraha ka hooseeya xeebaha galbeed iyo bariga gudaha markaa waxaan halkan waa yani boqolkiiba 35 bay dhibaato taabatay dowladda Soomaaliland saadirteed faafayntu waxay ku qoran tahay warqadaha idin gudbinay waxaan maanta halkan aan soo joogsanay in aan abiil galayno in degdeg dhibaatada maanta taagan Soomaaliland maartay abaaro ay kaga tageen wax looga qabto si aan loo gaarin macluusha maanta gaadhay qaybo kamid ah Soomaaliya oo ah haddaan maanta halka maanta ay joogto laga hortagin ay dhici doonto markaasi inay dhibaatada maanta macluushaasi la gaaro taasina ku noqon doonto ceeb hay'adaha UN maanta maartay u qaabilsan maartay caalamka inay maartay dadka taakulayaan codsiga maanta waxa weeyaan dhibaatada maanta taagan ee halka ay ku joogto sidii loo anaka dawladahana waxaan qaban karno waan qabanaynaa wixii idinkana waxa laga baahanahay hay'aduhu dhamaantiin haday caafimaad tahay haday biyaha tahay haday cunto tahay in degdeg wax loo soo gaaro si ay dhibaatada maanta Soomaaliya taagan aynan u gaarin aad iyo aad nabad maasantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh